madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta khudbad ka horjeediyay golaha shacabka baarlamaanka federaalka ayaa ka codsaday golaha in dib loogu laabto sharciga doorashooyinka ee 17 Sebtembar si loo qabto doorasho loo dhan yahay loogana gudbo xasaradaha siyaasadeed. madaxweynaha ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ku wareejiyay qabsoomidda doorashooyinka iyo amniga doorashada. golaha sharafta leh waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hogaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha. waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn. intaasi kadib gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa cod geliyay codsiga madaxweynaha. baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod gacantaag ah u qaaday codsiga madaxweynaha waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal. heshiiska 17 Sebtembar in dib loogu noqdo wax ka aamusay malaha, xildhibaan diiday malaha, waxaa ogol u codeeyay 140 xildhibaan. sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17 Sebtembar sidaas oo ansax ku yahay. ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu mahad celiyay golaha. waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad iga aqbasheen codsigii ku aadanaa inaan idinkala soo qayb galo kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku-meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. dhalinyarada Soomaaliyeed waa ubaxeena weeye, waa mustaqbalka berri. waxaan idinkula dardaarmayaa ha noqonina xaabo la shito oo dana shakhsi ah lagu gaaro oo haligi kara naftiinna, maalkiinna, dadkiinna, dalkiinna iyo diintiinna. waxaan sidoo kale kula dardaarmayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan qaybihiisa kala duwan inay dhiirigeliyaan nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, lana garab istaago ciidamadeenna qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan sidii ay u sugi lahaayeen amniga aan maanta ku hiranayno, amniga guud ee dalka. Cumar Maxamed, Hirshabelle TV, magaalada Muqdisho.